Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan casharkeenii labaad ee afka Soomaaliga ereyada faraha badan leh aynu ku sharaxaynay oo casharkii hore aynu YouTube-ka gelinay ereyada la sharaxayay. Mar walba waxaanu qaadanaynaa insha Allahu tacaala 5 erey oo kuwii hore ahayn ayaynu qaadan doonaa. Casharkani waa casharkii labaad ee afka Soomaaliga, waana aqoon kororsiyo. Casharadan ereyadan cusub waxaynu u duubaynaa inuu qofku noqdo qof xikmad leh. Markaad af Soomaali fara badan aad u ururiso, waxaa laga yaabaa inaad ku dhawaato inaad wax tirin karto oo isku dayi karto ayaa laga yaabaa. Marka afka Soomaaligu waa wax aad u ballaaran, qofna aanu odhan karin waan wada aqaanaa, oo wax la soo koobi karo maaha afka Soomaaligu. Marka 5 erey ayaynu maanta ku qaadanaynaa. 5 erey oo kala ah ceelalyo, wegered, afka xooble, gomash iyo heec. 5 erey ayaynu maanta insha Allahu tacaala hadduu Ilaahay inoo saamaxo aynu ku qaadanaynaa. Insha Allah waxaynu ku qaadanaynaa ceelalyo, wegered, afka xooble, gomash iyo heec. 5taas ayaynu insha Allah ku qaadanaynaa. Mid walbana waa kan sharaxaadiisii. Ceelalyo waa tan sharaxaadiisii, wegered sidoo kale, afka xooble ilaa iyo intaynu ka dhamaynayno 5 erey sharaxaadooda. Haddaynu soo qaadano qodobka ugu horeeya oo ah ceelalyo, marka xoolaha la aroorinayo ama la waraab geynayo. Intaan xooluhu aroorin ayaa waxaa la sii diraa rag maalintaa ka soo horeeya oo ceelka hore u sii taga, kaas oo la doonayo inay agabkii iyo weelkii ku cabi lahaa xooluhu u sii diyaariyaan, una sii eegin inuu ceelku biyo leeyahay. Tusaale ahaan, ceelalyadu waxay fara badan tahay marka abaaro jiraan ee ceelka biyo yareeyo ayaa ceelalyada inta badan la diraa oo loo sii eegaa ceelkii inuu gaaxday oo biyo yeeshay. Marka ceelalyada waxaa la odhanayaa ragga maalinta ka soo horeysa la sii dirayo. Tusaale ahaan, berri oo kale ayay aroorayaan xooluhu, maantoo kale la sii dirayaa. Raggaas ayaa la odhanayaa ceelalyo, oo waa ceelalyo, xooluhu way ceelalyo yihiin. Qodobka labaad waa wegered. Qodobkan labaad ayaynu maanta soo qaadan doonaa, casharkeena ku soo qaadan doonaa waa wegered. Xadhigga caloosha lagaga xidho faraska si aanu rakuubku uga dhicin. Rakuubku waa macnaha waa intaan reeryadan lagu fuulo faraska ayaa rakuub la odhanayaa uga dhicin, ama reeryada lagu fuulo ayaa la odhanayaa wegered. Faraska rakuubkan lagu fuulo inta badan rakuub waxaan u malaynayaa inay aad u ahayd haddaanan qaldaynin. Birta lagu fuulo ayaa rakuub la yiraahdaa, lugta la saaro ayaa laftigeeda la yiraahdaa rakuub. Adigu reeryadan lagu fuulo faraska, xadhigga u haya faraska ku haya ee caloosha laga marayo si aanay reeryadu uga dhicin ayaa la odhanayaa wegered. Watii gabadhii lahayd dowliskii walwaaleed iyo yaan wegered kula go'in. Marka wegeredku waa xadhigga caloosha lagaga xidhay faraska, waxaan ugu jiraa kaalintii awrka ugu jiray marka awrka la reeriyeeyo. Caynka waxaa la yiraahdaa oo isaguna caloosha xagga dambe ka mari jiray. Marka caynkii ayuu ugu jiraa faraska marka cayn lama odhan karo, isaga waxa la odhanayaa wegered ayaa la odhanayaa, xadhigga caloosha laga xidhay. Waxaa jira qodobkeena saddexaad ee casharkan ku guda jirno ku qaadan doonaa, isaguna waxa weeye afka xooble. Afka xoobluhu waa nooc ka mid ah neefafka ama neefka yara ay geelu hasha dhasho ama geelu dhalo ayaa la odhanayaa afka xooble. Haddaba afka xooblaha iyo dabuurku way kala duwan yihiin. Dabuurku isagu dhogorba ma laha, laakiin afka xoobluhu dhogor yar aan badnayn buu leeyahay. Afkana markuu dhasho isaga aad waxa loogu yaqaanaa xoob baa kaga xidhan. Afka xooblaha xoob ayaa kaga xidhan markuu dhasho. Caguhuna way balbalaaran yihiin oo caga balbal jaqsan oo aan istaagi karayn neefkii
ayuu leeyahay afka xoobliya. casharkeena qodobka saddexaad ereygan saddexaad aynu kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala waxa weeye gomash. gomashka waxaan u maleynayaa dad fara badani garan maayaan, laakiin in yar ayaa ka garanaysaa. gomashku marka hore horta waa midhahan la qaraabto ayuu ka mid yahay, waana midho aada u macaan. inta badanna isagu mar walba ma bixe, wuxuu soo baxaa xilligii guga ayuu aada u soo baxaa. waana dhir inta badan dixata oo sidaa u dixida, waxaana isu soo yara eegyihiin marka intaanu bislaan waxay korka isaga eegyihiin. haddaad aragto uu gahaydha yahay waxaad arkaysaa inuu isu soo yara eegyihiin midhaha toonka oo kale ayay isu soo yara eegyihiin. dushana dhogor yar buu ku leeyahay, geedka uu ka baxayo midhaha laftigooda dhogor yar ayay leeyihiin. markuu bislaadana wuxuu leeyahay qolof yaroo laga burburiyo, midhihiisuna waa huruud. marka gomashku waa midho la cuno oo la qaraabto sida toonka oo kale weeye. sidoo kale midho toonkana uu ka yara yaryar yahay oo waxaan leeyahay uu ka yara waaweyn yahay marka loo eego gomashka ayaa ka yara roon midho toonka. laakiin markuu midhihiisu bislaado sida toonka casaan maaha, isagu waa huruud isaga midhihiisii. qodobkeena shanaad ee aynu kusoo qaadan doonaa waxa weeye, ama ereygeena shanaad waa heec baa tahay haddii lagu yihahdo. waxa weeye heec waxaa loo yaqaanaa neefka isaga oo yar oo caana yaqaana hooyadii dhimatay kadibna la jaqsiiyo naas neef kale oo aan dhalin. tusaale ahaan wuxuuba ahaa wan yar oo hooyadii dhimatay, kadibna waxaaba la jaqsiiyey ayaa lala jaqsiiyey neefkeedii oo midba naas la siiyey. neefka yar hooyadii dhimatay wuxuu ku nool yahay ridaa lala jaqsiiyo. macnaha dee isagu ri ma jaqi jirin, waxaa keentay duruufta hooyadii markay dhimatay lala jaqsiiyey rida kale. neefkaasa la odhanayaa heec. macnaha hooyadii ma jaqo, neefkaasi waa heec. heec ayaa la odhanayaa neefkaas. haddaba casharadeenna imtixaanaha insha allahu tacaala aynu wadi doono intuu waqtigu inoo saamaxo. waxaad ka heli kartaan iyagoo taxane ah bogga channelka aanu youtube-ka ku noolahay ee la yihahdo dhaqankaab ayaad si toosa uga heli kartaan. sidoo kale waxaad wax fara badan oo sawir, aragti, video intaba kugu tusi kara aad ka booqan kartaa, oo wax fara badanna aad ka heli kartaa oo aanu sawiro ku keenay, sharaxaad badanna kaga bixinayno bogga aanu facebooka ku leenahay ee bogga dhaqankaab. haddaba daawadayaal, si aad ugu xidhnaato boggan dhaqankaab, like saar youtube-ka, facebookana boggaanu ku leenahay like saar si aad ula socoto waxyaabaha fara badan leh aanu soo dhigano, hadday noqoto facebooka iyo hadday noqoto youtube-kaba. casharadan faraha badan leh waxaa igu kalifay afka soomaaliga, waxaa jira dad fara badan oo dibadaha ku dhashay, afka soomaaligana aan aada u aqoon. tusaale ahaan hadduu macali yaqaan inta lagu hadlo unbuu ka yaqaanaa, laakiin wax fara badan oo murtii ku dheehan tahay ma yaqaano. run ahaantii waxaa baahida ugu weyne igu kaliftay waxay tahay inaan dadkaas oo kale ay ka faa'iidaystaan oo ay bartaan afkooda hooyo. wax walba iminka haddaad caalamka eegto, wax walba mid waliba waxa uu ka horreysiinayaa diintiisa mooyaane, tusaale ahaan islaamka mooyaane, mid waliba luqadiisa uu ku hadlo ayuu kobcinayaa oo dadka barayaa. marka waxaa loo baahan yahay inaynu afkeena soomaaliga kobcino, soo noolayno. haddana waxaad moodaanba inuu aada u sii dhimanayo ayaad moodaan. marka asxaabi waxaynu leenahay afkeena soomaaliga aynu ku faano, meel kastaynu joogno soo noolayno, yaynan ka cararin. luqad qalaad oo ajaanib leeyahayna yaynan jeclaysanin. marka hore waynanu afkeena soomaaliga aada u baranaa oo aynu wax fara badan ka baranaa, si aynu xigmadiisa iyo faa'iidooyinka waaweyn uu leeyahay
aynu ula kulanno ama aynu u aqoonsano ama aynu u baranno. Tusaale ahaan markii hore dadkii hore hasaawi jiray waxay lahaayeen xigmado fara badan ayay ku hasaawi jireen iyagoon hadalkooda daaha ka siibaynin ama dharka ka saaraynin oo hadallo sarbeeba ay isdhaafsan jireen. Iminka laakiin ma jiraan, waxaad moodaa inuu afkii Soomaaligu sii dabar go'ayo. Markaa fadlan qurbo joogta iyo dadka afka Soomaali ku yaryahayba waxaan leeyahay si wacan ugu xidhnaada channelka YouTube-ka aanu ku leenahay ee Dhaqankaab iyo bogga Facebook-ka ood ka daalacan kartaan iyagoo sawir ahaana. weliba waxa aad ugu heli kartaan bogga Facebook-ka oo isagu macal sawir kugu tusaya xayawaano, waxyaabo fara badan oo aanad hore u arag ayaad ka heli kartaa labadaba YouTube-ka iyo Facebook-kaba. dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa intaynu casharka saddexaad ku kulmi doono insha Allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.